waxaa baryahan dhagahayna ku dhacayaan dhawaaqyo dhiilo wato oo ka imaanaya ari cadeeye gobolka Sool oo walaalaha halkaa wada dega colaad iyo dhibaato ay dhex martay waxaan waxgaradka iyo isimada culummada ururada bulshada dhalinyarada iyo hooyooyinkaba ama haweenkaba leenahay in arinta ayada ah sida aad dhacdooyinka hore idin soo maray aad u xallin jirteen inaad u xallisaan waan hubaa inaad u xallinaysaan anigoo aan hubo inaad dowladda Somaliland inay arinta ayada ah kaalin weyn ka geysatay kana geysanayso hadda waa hal hayskii ahaa dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho in muddo ayaa ilaahay baa halka idinku wada beeray wada deganeedeen daaqsin iyo inta badan colaadu waxay ka timaadaa waxyaabo dhacay oo xalkoodii xagga nabadda loo aadi waayay xagga dagaalka loo aaday walaal waxaan leenahay aqligu ha shaqeeyo shaydaanku yuusan idinka xoog badin ilaahay u soo laabta walaalihii dhintay Allah u naxariisto meel walbaba inta nool ayaa u baahan in la badbaadiyo arinta ayada inaad colays bay ku haysaa maanta wax horumar lagu gaari maayo wiil la dilay ama reer xoolahoodii la dhacay dhiilo colaad waxa ay taraysa lama arko way arag baan u nahay idinkuna u tihiin isgarabsigii iyo walaalnimadii iyo ehelkii xilidii xigaaladii la ahaa taasa magac iyo qiimo lagu lahaa ayadii la soo cesho waan hubaa inay u taagan tihiin waxgaradka u taagan yihiin iyo ismadu waan hubaa culimadu inay qaybtooda lixaad ka qaadanayaan waan hubaa inay ciidamada Somaliland arinta ayada xil iska saarayaan haddana waxaan rabnaa inaan codkeena annaguna ku xoojino meel kasta oo magaca Soomaaliyeed wax ku gaarayaan xanuun bay nagu tahay waana taabanaysaa ama Somaliland ha to ama Puntland ha to ama Jubbaland ha to ama Koonfur Galbeed ha to ama Galmudug ha to ama Hirshabelle ha to ama Soomaaliya NFD iyo Soomaali Galbeed meel dhinac kasta ha to magaca Soomaaliyeed inta af Soomaaliya ku hadasha inay isgarabsadaan isku heshadaan ayay waxa nala darisa qiimo ku leeyihiin dan naga tira badan oo aanan isku diin ahayn marka wiilkii naga dhintay waa meel buu baneeyay waxaan u baahanahay hadii Ilaahay yiraahdo garashaas ayada ah adinkoo ka duulaya inaad inta aad xallin kartaan nabadda xageeda aad garab siisaan waan hubaa inaad siinaysaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh